wargeyska caanka ah ee East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa cadadkiisii shalay qoray in qorshihii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku doonayo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku geeyo Hargeysa uu gidaar adagi ka hor yimi. wargeyska ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay qorshihii Abiy uu ku doonayay inuu dib ugu heshiisiyo Soomaaliya waxa ka hor yimi gidaar adag. waxa uu ku sheegay wargeysku qorshihii Abiy Ahmed uu ku doonayay inuu Farmaajo ku keeno magaalada Hargeysa in ay Somaliland ka hortimi isla markaasna ay diiday. waxa wargeysku soo qaatay khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyay labada gole baarlamaan ee uu ku laalay in Farmaajo uu ku yimaado magaalada Hargeysa. waxa uu sheegay sidoo kale inuu madaxweyne Biixi soo dhaweeyay raaligelintii uu madaxweyne Farmaajo ka bixiyay xasuuqii Siyaad Barre oo xasuuqa u geystay shacabka Somaliland. haddana waxa uu madaxweyne Biixi ku tilmaamay in Farmaajo Hargeysa yimaado waxaan caqliga geli karayn. waxa uu wargeysku kale oo uu sheegay in diidmadaasi kadib uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u diray Hargeysa wafdi ka tirsan xukuumaddiisa, laakiin ay Hargeysa kala kulmeen mowqif adag oo ay iska taageen in Farmaajo lagu soo dhaweeyo magaalada Hargeysa.